muqdisho waxay soo martay xilli adag iyo dagaalo sokeeye waxaana markaas yaraa horumarka dhismaha magaalada laakiin 10kii sano ee u dambeeyay waxaa magaalada ka bilaabmay dhismaha guryaha hoteelada suuqyo iyo xarumo kale sida dukaamo ganacsi shirkado badan oo ka shaqeeya dhismaha ayaa dalka ka furmay waxaana isbeddel ku yimid qaabkii loo isticmaali jiray dhismaha kaasoo horseeday in shaqo waqti badan qaadan lahayd waqti yar lagu qabto xaafado cusub iyo apartments aan horey u jirin ayaa dhismay waxayna suuqa ku soo dareen naqshad cusub oo aan dalka horey ugu jirin waxaa hubaal ah in muqdisho isbeddel weyn oo dhanka dhismaha uu ku yimid 10kii sano ee la soo dhaafay waxayna taas keentay in sabirkii muqdisho iyo bilicdii magaalada ay qurux badnaato horumarka dhismaha muqdisho ayaa noqonaya mid mar ka sii dambaysa si wanaagsanaada waxaana furmay albaabadii maalgashiga iyagoo ay bilaabeen in la dhiso real estates kaasoo sababay dadkii guryaha ka gadan jiray dalalka dariska ah inay dib u maalgashtaan dalka haddaba 10ka sano ee soo socota muqdisho siday u ekaan kartaa